بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحلقة إني أفراد برامج كأني تحنها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومرتدين أبوها شيخ الناشر محمد عبد الأمل. سؤال أفرتني اللحاد أي شيخنا كبلا من الساعة حلقة النعاو سائلكو حولي هاي شيخ نين يحاس كيسا يا اسكو دعي أيضا نينك دروغو شركيسا أي كجرتو كدب حاس كيسي waxay tiri wuxuu uu furay isna wuxuu yiri waad furan tahay. kadib gabadhii waxay tiri wuxuu igu furay 3 dalqadood, asaguna wuxuu yiri waxaan xasuustaa inaan iri uun waad furan tahay laakiin inaan 3 ku furay ma xasuusto. marka mas'aladaas sheekh maxay noqonaysaa? بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سؤال شيء أنت أنا كجوابين سؤال شيء قدام بيسيدرسي يعني حالي حلقة دي كوريستان وهايدني كي مقتشن سؤال شكا صدري هدانا حواليه بحنين واليدلية محان سمية. سؤال شيء مركا كجوابني كدي وحا صوبح ذي سؤال كالو دهيسا روحا عدو سيدي سبا زكا بحواي ملو دلية oo dil ma ku mudan karaa inuu zakadii bixinteeda diiday bigad nadar cidda ka qaadaysa ama cid gardaran ha noqoto ama xataa dawladii xaq ahayd ee zakada loogu talagalay inay qaadaba ha noqotee ruuxa ma loo dili karaa hadduu zakadii bixi waayo? su'aashaas ka dhalatay wax yar baa iyada isdul taagaya jawaabteeda insha Allah taala. ruuxa zakada diidan hadduu diidan yahay waajibnimadeedaba iyo mashruuciyadeeda kaasi diinta uu ka baxaya, waa gaaloobaya, waana la isla ogolyahay. hadduu ruuxu zakada u diidan yahay bakhaylnimo iyo fududaysi laakiin uusan diidanayn waajibnimadeeda, markaasi madaahibul arbaca iyo culimada jamaahiirtoodu waxay qabaan inuusan ku gaaloobaynin zakadii oo uu bakhaylnimo u diiday. waxaana ku tusaya xadiidka fi saxiix muslim, nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam dadka aan zakada bixinaynin maalinta qiyaamada in xoolahoodii lagu ciqaabayo oo dahabkii iyo fidadii lagu gubayo inta la kululeeyo maalinkaas oo 50 kun oo sano u dhigma. markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. مركا كذب ودومضى لك على حكمه أيا أما النار لقين أما الجنة لقين. مركا نار لقين أما الجنة لقين والروح مسلمة. هذو قال لما أهان كل من لها وقال أهان لها متى مادين أما النار لقيه أما الجنة لقيه، ومعناه وحويان تحت المشي أما النقدين. توس waxaa la dhigaa naartu tagi lahaa. xadiidkaas ku cad waana sida jamaahiir ahlul ay qabaan inuusan ku gaaloobaynin. ama adduunyada see loola dhaqmayaa laba loo kala qaadaya. haddii uu xoog leeyahay oo koox xoog leh isdifaacayso oo dagaalamayso oo uu yahay, marka zakada in laga qaado waa lagula dagaalami. waana arintii saxaabadu ay sameeyeen ijmaac ay ku qaateen markay la dagaalamayeen nimankii muxuu ahaayay xilligii Abu Bakar kuwa ridoobay kuwa zakada diiday isugu jiray. waa kii Abu Bakar lahaa wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasuulillah laqataltuhum ala man'iha. waxar haday ii diidaan ay bixin jireen waqtigii nabiga waan kula dagaalamay. markay koox xoog badan yihiin oo intay xoogeystaan ama koox ama qabiil ama nidaam dawlado
sakadii diiday oo laga qaadi kari waayay marka waa lagu la dagaalami karaa hadduu yahay cid aan tabar uu isku difaac lahayn oo shawka iyo manaca aan lahayn sakadiina uu diido oo bixin waayo bixin la'aantana ay ugu wacan tahay bakhaylnimo fududaysi ugu wacan tahay marka maxaa la sameeyaa marka waxa la sameeyaa xoolihiisa in xoog looga qaado sakadii ma intii sakada lagu laaan baa laga qaadi mise labanlaab baa looga dhigi waa mas'ala kale laakiin xoolihiisii baa looga qaadi sakadii inta loo taga xoolihiisii laga qaaday xoog looga qaaday ama isaga dhiigiisa lama geli karo lama daadin karo looma daadin karo loomana dili karayo calashaani xoolihiisii buu sakadii ka bixin waayay daliilkeedu waxa weeye fi saxiixayn waxa ku sugan nabigeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu amray in sakada la soo ururiyo nin la yiraahdo ibn Jamil ayaa sakadii diiday iyo Khalid Mawlid iyo Abbas ibn Abd al-Muttalib saddexdaas laga soo dacwoodo la yiri sakadii way diideen inay bixiyaan markaas nabiga markii reportkii uu yimid wuxuu yiri ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله ابن جميل وحو زكاة أديدي وحكى لما فقير بوهان شري إلهي رسولك سأيات ديق وحبوها لي وحبال السي وحي اللي انتو كالشكرين لها أيو مركز بالله بأينو زكاة ديد النبي قمرين صلى الله عليه وسلم مركز هل سودي لمرده كليه وحو أديدي علشان يودرجي ونولادي النبي صلى الله عليه وسلم مدين الله سوق قبطنا مدين هل دلنا مدين صلوات ربي وسلامه عليه اما لبدا نين كله او خالد وحضر دار وحو يري خالد واد كغردرنتين waa dulminaysaan maxaa yeelay dareedyadiisi iyo hubkiisi uu jidka Ilaahay u waqfay Abbas oo ma aanay wixiisu isaaran yihiin Nabi sallallahu alayhi wasallam oo loo fasiro lagu fasiro ma nabiga ka bixinayay mise horay baa looga hormarsaday oo 2 sano zakadoodii uu nabigu horay uga qaatay oo Abbasna faraha ka qaada ay Khalid nood ka gardarantii ama ninka ibn Jamil la yiraahdo asagu waxa weeyaan intuu noolaaday oo taajiray uu sakadiisa u diiday marka nabigu sallallahu alayhi wasallam ma dhihin hal soo dilo ma dhihin salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa kale to isagana xadiidka Ahmed iyo Abu Daawud soo saareen ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطاها مؤتجرا فله أجرها روحي زكاة بحي سوى أجر دونيا ونيا أجر هذه سوكب بحي أجر كسولي ومن منعها فإن آخذوها منه وشطر ماله روحي زكاة ديدو نسين واي حق بانك قاضينا انتي لقولها يحوليه سنسكوت بانك قاضينا marka waxa laga hadlayo xoolihii in laga qaado zakadii ku baaqatay ma waxba la saari doona ma intii ba laga qaadi doona fuqaadu ha ka doodaan laakiin xoolihii baa laga qaadi oo laga raadin mooyee ruuxan kada zakadii buu diiday dhiigiisa uma banaanaanayo hatta jihada zakada ka qaadaysa haday tahay jihadii ugu xaq lahayd oo dawladda islaamka hatta haday tahay dawladda rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa iska badaa marka ruuxa dhiigiisa in loo banaysto cala xashaani xoolihii buu diiday xooluhu haday baad yihiin ama muxuu ahaay ay yihiin si khalad wax lagu qaadanaa ama canshuur iyada warkeeda iska badaa waa zakadii waajibka ahayd طيب laakiin hada waxaba iska fududba oo masaladu ba hadal badan ayna u lahayn nin muxuu ahaay dhiig banaystay xoolo maxay leeyihiin xoolo waxba lama aha روح مربى هذو ديك بنيستو وحي كدن بيو كهوسيو دنا wax weyn lama ah macna طيب تا inta hadan kaga soo gubno ishkaalka iyo jawaabtiisu waxa weeye su'aashan hadan u nimaadno haweeneyda oo ninkeedii oo sarqaansan uu furay ma dhacaysa dalqadaasi ama asagu mid ha xusuusto iyaduna saddex tiraahdo wax ma ka dhacayaan mise kama dhacayaan wal isku khilaafsan yahay ruuxa sarqaansan laba mid waay ruuxa haduu maankiisa asagu sabab uu leeyahay kullumiyo khamru cabay daroogu isticmaalay waxa la yiraahdaa ka isaga ah sakran balda haday maskaxdiisu si alla u lunto oo sababun isagu uu salahayn ay u luntana ruuxaasi marka waa ka duway ka isaga dalqadu ka dhixmayso ama kan isagu sababtu u noqday inuu maskaxdiisa lumiyo oo maankiisa lumiyo
كاول اسكو خلاف سنية هاي تصرفات كيسة هدو وحفرو دلقدي مدعيسا ولا اسكو خلاف سنية وحانا حوق بدن والله أعلم إنه يسمح بكفر مينين ما دام أوسن إسقرنين وحان دليل أقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يعني صلاة ده دواننا إلى أن ميرستان وواحد كوها الليسان أذكرتان مركز صلاة ديسي عبادة ديسي وحبك من شراء الله يسوق عظيم لأنه ما فهم هاي ما انكبا مقا صوما سيدو كاليت النبي صلى الله عليه وسلم نين زنا قرنا يا أويمت وحوي رسولك إلى أوان زنا يستي هل يحدو هل يكرباشو أما هل يدي الهدوم حسين النبي صلوات ربي وسلامه عليه وحوي يري يعني وحويان خمرة ما عبد والفيريم خمرة ميعبي صحيح مسلم قاعد يذكر يلا وحلقة قادنا يا هدو خمرة عبي ونمكو سرقان سنان لها قرال كيسة أوان زينيستي وحلقة ما سوق عليه لما نحدين أدور لها خمرة عبي أما لقى بدريم لها يقف كيسية لقى أوري لها لأنه روح سرقان سنة مركز اعتراف كيسية هدو سنة وحبا لقى سوق قادين دل قدي سنة وحبا لقى سوق قادين ماي وانا السيدة كسوغان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ابن منذر نوح ليه هي لا نعلم أحد من الصحابة خلافه أحد صحابة كم ذو خلافي عثمان بن عفان مجرو ويتشرا صحابة قاركود لغا سوري لكن روايات كان لغا وري وضعيف waxay ka sugan tahay Uthman wuxuu yiri ya Abdullah ibn Abbas sakraanka waxba kama furmaan laana maskaxdii baa maqan sharaacaduna maskaxdii la hadashaa maskaxdii xil ka saarta iraada male oo sida mukraho kala waay sidaasi ayaa waxa ku tagay fuqaha badan al-Imam Shafi'i fi ahad qawlihi Ahmad zahiriyada waxa doortay Imam Sheikh Islam Ibn Taymiyyah iyo Ibn Qayyim iyo culimo kale marka waxaan leenahay hadii uusan sarqaan sanaa ama laba ha yiraahdo ama saddex ha yiraahdo ama hal ha yiraahdo waxba kama furmayaan haduusan sarqaan sanayn oo marka wuxuu ku hadlay isgaranayo una qasti karo oo iraadadii qasabkii joogto markaasi way furmaysaa macna wallahu a'lam jazakallahu khayran barakallahu fiik saa'ilka 47 waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay gabar joogta dalka Mareykanka waxa la igu leeyahay soon marka waxaan rabaa inaan qaleeyo laakiin sheekhana wadankan aan joogno bilaha qaar maalinta ayaa badan oo habeenka ayaa yar kuwana habeenkii ayaa badan oo maalinta ayaa yar marka haddaan bilaha maalinta ay yar tahay sugo si aan u soomo anoo ka cararaya bilaha ay saacaduhu badan yihiin soonkaygii wax dhiba ma soo gaaraya wax dhiba ma laha leanno ruux haddii uu soonku ka tago oo cudurdaar sharciga uga tago waxa laga rabo waa unqalihi fa'idatun min ayaamin ukhra maalmihii ka tagay tiro leeg inuu qaleeyo oo waay laakiin zaman dheer iyo mid gaaban isaga kala dooran kara maadaama muddadii qallaha ay ku jirto waxa weeye waqtigu doonu dooran kara bal iska badhaafe ramadaanku markuu jiro wadamada muddadoodu dheer tahay oo laga yaabo ruuxu inuu xamileynay ku adkaato culimadu waxay leeyihiin uu ka tagi karaa meel waqtigeedu gaaban yahay uu ku soo soomi karaa marka taxayul ma xeeladaysi ma shariicada ahkaamteeda laga xeeladaysanayo waa taysiirkii iyo fududeyntii shariicadu bixisay waa khiyaar waaye hadii maalinka dheer ruuxu ku soomayo haduu mid kale ka dhiganayo xuduudii shariicadu u fasaxday waay wax dhibo mal insha Allah ta'ala wallahu a'lam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik saa'ilka 48 waxa uu leeyahay waa isla gabadh sheekh 5 sano ka hor ayaan ilmo dhalay bishii soon sidaas ayay iga tagtay anigoon qalaynin soonkii labaad ayaa igu soo galay haddana anigoon dhammaystirin ayuu kii saddexaad igu soo galay ilaa iyo haddana soonkii isaga ahaa qayb ayaa laygu leeyahay markaa sheekh maxaan sameeyaa haddii soonka dibdhiga aad dibdhigtay qallihiisa ilaa soonkii kale kugu soo galay oo sooman kale soo galeen haddii aad cudurdaar lahayd oo duruufta kuu saamixi weydayna wixii uun kugu hadhay inaad qallaysaa laga rabaa haddii aadan cudurdaar la'aan aad soomankaa isa soo gaadhgaadhiso adoo qallayn kara aad dayacdayna waxaa laga rabaa inaad toobad keento laanna soonka qallaha lagugu leeyahay inaad dib dhigto ilaa ka kale soo galo waa khalad
adoo qallayn kara oo awoodi karay وعلى اللود للشداء حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وحيلا هاي كان يكون علي الصوم من رمضان صوم قلاء بالي يقول هانشري بشهر رمضان طبعا مركي عادة كل عادة الصوم كي يوقف فرطوه فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ما أنا أودي كريم بتير إن أنقليه إلا شعبان موي بشهر رمضان كورس بشاس أنقلين شري بتير محايلي الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول كي أديك يسي خدمة دي سانكو مشغول صنع بيت مركي شعبان صوقله ووقت حريري النقضه أيها وحي اللي يقولها جودي شري بلاد حلقة قادنا يا مركي شعبان كدب ورمضان صوقله إن الدب لو سريحي كرينه خلطه سيداس دراديد با waxay ku tageen aymada qaar kamida shaafiiciyada iyo xanaabilada iyo hadii ramadaan kaleeto uu ku soo galo adoon qallaynin in laga rabo qallihi iyo fiidyo xadiis kuma sugna fiidyadaasi laakiin waxay ka sugan tahay Abu Hurayra iyo Abdullah ibn Abbas ayaa ijtihaad ahaan u fatwooday Imam Shaafici iyo Ahmad ibn Hanbal iyo marka saasay leeyihiin marka نص ملها وآيات قرآن يا حديث مله في دية الله راعين يقلها لكن والرأي اجتهادي واحد المهم واحد لقربا إن عاد سيدك دق أقليسو وحي لقولها هدي مدة أدب دكتي ضيعت سميسي قلين كرتينا وإن توبتك أن توضي الله أدب داف ويديسة خلط بعدك شيء والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخنا إسرائيل كان أفرتين سجلات وحولي هاي وحشراء دل كان عن شغلنا أمريكان كبنكيو دت كقريها وكذا يوجا كده هي انترست أمر ربك كسران ما إنه وحي كده هي عن قري صور رد صور كتب من العقد قيمة قري جاي كابحين يان كتب وحي كده هي عن سؤالها صدق سنة جدهود بالولبا انتاس استبيحي لكن شغل العقد بالكستاد بحين يسوع إلى مدة أي كو قبتين إلى العقد أي كابحيين وحا كبدنا يسال لعقت عاد بالول ببحينيسي marka halka riba ma soo gali kartaa qaabkaas ee guri ma loo gadan karaa si aanteed horta mabda'iyan bankiyada adduunka ka jira intooda badan systemkay ku shaqeeyaan waa system ribawi ah gaar ahaan bankiyada reer galbeedka ka shaqeeya qaalibka waa bunuug ribawi ah systemkay u shaqeeyaan waa systemka ra'samaaliga bay ku shaqeeyaan capitalismka oo ah inay lacag saartaan ribawiga hadii la helo banki ama sharikad ama hay'ad dadka maal gelinayso oo guriga u gadayso oo guriga intay ka gadaan faa'iido saaranaya lacag ay ku siiyeen lacag ma saaranayaan laakiin badeecay faa'iido saaranayaan shuruud bay leedahay marka hadii shuruuda la ilaaliyo dhib ma laha shuruuda waxa kamida guriga uu ka gadayo bankigu intuusan ka gadin ama shirkadu ayna ka gadin waa inay guriga uu bankigu yeesho hadduu horay u lahaana horay buu u lahaa haddii kalena waa inuu isagu soo iibsado adiga markoo afgarad baad la gaari kartaa an agreement iyo heshiis ahayn laakiin waa inuu markaa wixii ka dambeeyo uu bankigu hawl galo badeecadii isagu soo iibsado haddii uusan soo iibsanin oo isagoo badeecadii uusan isagu lahayn uu ku yidhaahdo adiga raadi ama iyadoo gacan kale ku jirto ciddii iska lahayd la taalla uu yidhaahdo waan kaa gaday waxay noqonaysaa laa tabiic maa laysa cindaka waxaadan lahayn ha gadin buu nebigu sal alla alayh wasalam taa waa qodobka labaad haddii uu soo iibsado oo uu yeesho waxaa kaloo la ogoleyn inuu ku yidhaahdo adigu tago adaa anigana wakiiliga ah adigana yani wax way naftaadana matalaya marka hore badeecada adoo aniga i matalaya la soo wareeg kadibna markaad la soo wareegto adigu markaa isku wareeji tawkiilul camiil baa la yidhaahdaa markay ugu yartaa waxaa ku jirta shubhatu riba yani wax way xeeladaysi iyo shubha ku jirta markay ugu yarta hadii kalena waaba ribo oo way ka digaan culimadu way ka digaan hadii sidaa wax lagu kala gato
badeecadii lagaaga gado gaari ha noqdo guri ha noqdo dhul ha noqdo saa lagaaga gado bangigii wuu yeeshay isagaa milkiyey kadib uu kaa gaday caqdigu waa ka dambeeyey markuu wixii la wareegay oo riskigiisa yeeshay buu kaa gaday waxaa haddana shardi ah sidaa markuu kaaga gado faa'iido saarto waa in aysan gadaal dambe haba yaraatee waxba ka kordhaynin oo aan la soo gelinin meesha waxay penalty waxay dhahaan yacni ganaax oo haddaad la daahdo haddaad maalan paymentiga ama muxuu ahay aqsaataad bixinayso qaar ka mid a aad kala dib dhacdo yacni waxa way haddaad la daahdo waxbaa ku fuulaya halkaa hadday shuruudahaasi soo galaan iyadana ribaa gelaysa waxaa kaleeto iyadana loo baahan yahay oo muhim ah inkees hadday dhacdo ruuxu inuu bixin waayo ama uu ka caajiso ama awood u waayo waa in ay noqoto ama badeecada ayaanu gadaynaa gurigaan gadaynaa dhulkaan dib u gadaynaa dib markaan u gadnana haddii wixii kugu dhimanaa uu gooyo waa u qaadanaynaa hadduu wax ka badan gooyo wax annagaan ka goosanaynaa siyaadadana waa kuu soo celinaynaa hadduu wax ka yar gooyo wax annagii aan kugu lahayn baan ka goosanaynaa inta kalena waan kugu leenahay ama ha kuu cafiyan ama aysan kuu cafiyin ama haddii kaleeto waa inuu shardigu noqdo haddaad bixin weydood muddadaa la daahdo inta badan waxay ka qaadaan wax la yidhahdo security bay ka qaadaan yacni rahantaasaan gadanaynaa markaan gadannadan wax annagii baan u goosanaynaa qaabkaas yay sax ku tahay laakiin hadday noqoto haddaad la daahdo waana sida ay u tacaamulaan way u mucaamuladaan bangiyadu haddaad la daahdo ama caajistood kari weydo waxaan samaynaynaa badeecadii baan gadanaynaa haddaan gadannana wixii aad bixisay oo horeo dhan waxba kama jiro waan xaraashaynaa waxay goysadaan annagaa iska leh waa dulmi markaa waa dulmi oo waxay waa khilaafsan tahay shareecaday khilaafsan tahay almuhim markaan soo uruuriyo way adag tahay mucaamalaadka aniga aan ku aqaano bangiyada inaad ka hesho mucaamalo nadiifoo shareecada waafaqsan xataa kuwa islaamiga sheegta oo bunuugta islaamiga sheegta aad bay u yartahay inaad hesho bangi sida ay tahay dadaalka u sameeya ixtiraaska u sameeya shuruudda tadbiiqiya laanna waxay ku socdaan inta badan waa andimada ay bunuugta ribowiga u degan bay inta badan ku shaqeeyaan kuwii baa wax laga yara farfarsamaynayaa magacyo islaamiya loo bixinayaa waxaa lagu leeyahay waa muraabaxa la dhahaa waxaa lagu leeyahay mushaaraka la dhahaa waxaa lagu leeyahay waxaa la yidhahdaa maaragtay ijaara almuntahiya bitamliik baa la dhahaa magacyadii baa lagu bedelayaa laakiin muxtawaha iyo xaqiiqadu marar fara badan waa tii bunuugta ribowiga ahayd oo weliba xeeladaysi sii dheer tahay waa marka aad ha loo taxadiro marka lala mucaamaloonayo bangiyada iyo mu'asasaadka maaliga ah ee caalamiga qaaliban aad iyo aad ha loo taxadiro wallahu aclam jazaak allahu khayran baarak allahu fiik saa'ilka kontonaad waxa uu leeyahay sheekh dhibaato aad weyn ayay haysataa dhibkaasi waa waswaas dhibka labaad waxaan ahaa nin dhallinyaro ah oo sanado ka hor aad ugu imtixaamnaa madida markay iga timaado gacanta ama meelo kale ayay igaga bigi jirtay markaasna uma aqoonin inay nijaas tahay laakiin sanadkan ayaan ogaaday inay nijaas tahay marka hadda waswaaskii wuxuu iga hayaa meelihii aan seexan jiray sanadadaas inay nijaas yihiin iyo in kale furaashkii waan rusheeyey teeda kale sheekh waswaaska i hayana waxaan u malaynayaa inuu ka mid yahay waswaasyada ugu khatarta badan oo janaaba marka igu dhacdo waxaa laga yaabaa inaan 3 cisho ama 2 cisho aan qabaysto markaa sheekh maxaan sameeyaa ficlan waa nooc jirada ka mid ah waswaas bay ka bilaabataa marka dambana jiray isu bedeshaa marka dambana say u socoto waxay ku biyo shubataa nooc ka mid ah waalida noocyadeeda nooc junuun ah ay marka dambe ku dambaysaa arrintaasi inay cudur tahay waxaad ku garan ninka gogashiisii iyo dharkii ay nijaasadu ka gaadhi jirtay ka baqaya inay weli nijaaso yihiin sooma fududa hadduuba yacni waswaas ka galay intuu dhaqo inuu soo dhaqo oo waswaaskaba ka baxo way fududahay laakiin waxaa laga yaabaa intuu soo dhaqay haddana inuu isleeyahay weli nijaasadii kama goyn oo sanadkii dhawaa wixii ku dareerahay muddadii dheer wixii wax ka baxay oo baa inuu jiradaa laga yaabo marka waa nooc jira asal ahaan marka dambe ay noqoto marka hore waswaas bay ku bilaabataa
dadka qoloba meel buu ruuxba meel bay ka gashaa ruux caqiidaday ka gashaa oo ilaahay iyo jiritaankii iyo caqiidadii iyo cibaadadii iyo waxa iska gali ruux waswaasku wuxuu ka galayaa tahaaradu ka galayaa istijadii iyo weysadii iyo qaar salaadu ka galayaa qaar mucaamalaadkii buu ka galayaa oo reerkiisii iyo gobashii iyo la tacaamulkii buu ka galayaa ruuxba meel buu ka galayaa waa halis dadka qaarkood wuxuu ka galayaa maskaxdu ka galayaa oo uu isla hadlayaa oo wuxuu leeyahay yani waxaan masaaj ku jiro dhan anaga wada fiirinaya cadowba ii waa waswaas hayaayo waa is ilaalinayo dhacayuu fiirinaya goorma lagu dili doonaa buu leeyahay marka waxa soo dhan waa noocyo kamida waswaaska kamida waa shaytaanka keena oo cadow inoo ah qaabo kala gedisan in loo dagaalamayo nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi talawiyyin dhowr abu ka bixiyay ama sharaacadu ka bixisay oo la isku daaweyn karayo ruuxu hadduu qaato ku dadaalo daawo u noqon karayo midda koobaadi waxa weeye oo muhiim ah in ruuxu uu gooyo oo la dagaalamo warka ku socda ee uu fulinayo warka ku socda ee uu fulinayo isleeyahay sax waa run waxba ka jira waa rumaystay waa run hagaajigaas waa meesha lagu dhex fadhiyo waa maxaa la rabaa inaad tiraahdo diiday maya waa beenta waxba kama jiro la dagaalan markuu ku yiraahdo meeshan waa nijaaso Soomaa ayadoo nijaasa iska dhaxgal markuu ku yiraahdo maadan istijaysanin wasaqan iska ahaado iska dheh markuu ku yiraahdo salaadii kuma xidhmin yeelkadeeda dheh ka soco ma garad islaantii waad furtay hadduu ku dhaho weligeed ba ha furanta dheh haddii aadan go'aan rasmiya qaadanin oo warkii istiraahdo intaad rumaysato wax sax istiraahdo halka way meesha lagu dhex fadhiyo waa sidoo rabgodkii aad u gashay marka waa midka nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay faliyasta'id billahi waliyantahi riwaayad kalena uu leeyahay beeniya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi daawada ugu fiican hortaas waaye oo ruuxu wixii uu ka celinahay uu dhex galo si fudud buu kaaga hadhi markaa ilaa nin baa kugu shaqaysanayay markaaba waa ka hadhaya haddii uu arko inaadan wixiisi dhagaysanaynin oo dagaha ka furaysato uu ka tagi laakiin hadaa wuxuu kuu sheegay intaad rumaysato aad sax istiraado hada godku rabi baad u gashay maanta barina mid kale ku gudbinaya qodobkaasi horta waa qodobka labaad waxa weeye inaad dhaqan ka dhigato sidaadaba waxaadan hubin wax kama jiraan ka soo qaad waxaad hubto wax ku qaybso wixii shaki ka galo tur macnaha waa macnaha nabigeenu leeyahay sallallahu alayhi wasallam nimba u sheegtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu u sheegtay in markuu salaada galo uu malaynahayo loo malagelinayo inay dabadiisa wax ka soo baxayaan mar alla markuu salaada galaba neef unba dabada ka soo socoto hadda banaanka markuu joogo waxba kama socdaan markuu salaad ku jiro waxba kama socdaan markuu salaada galo gudaheeda unba dabada laga taataabanaa war maxaa ku haysta nabigu u sheegay sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا صلاة يوسن كبحن إلى أما أرك هذا دريم نفط صبح هذا أرك هذا أما أوشنقر مقلوب صوت وحيد هاي رسولك صلى الله عليه وسلم شيطان باكو إيمانيا مركزو دبدا كا أفوفيا دبدو كا تاتابنا هي دبدو كا أفوفيا لأن ميلو بنجي جرا موقتها مركزو حكوليه حوا كا صباح soomada neefa ka soo baxday soo weysi soo dhiimeys soo weysan meys hadana marka salaad soo gasho hadana ku taataabana aduma weyso baad ku jiriyo salaad burto marka ya xaqiiqo waa yaqiin wax ku dhiswaa ma maqashay ma sawrisay ma yasoomaa waligaaba ku taataa wixii soo baxay soo bax ha iska socoto adigana salaadaada ka wado waa midaan hadda sheegay marka yaqiin waxaan ahayn shaki oo dhan iyo tuumo oo dhan banaanka iska dhig soo qodob labaad ma qodobka saddexaad in aad badiso isticaadada inaad ilaahay ka magan gasho oo ilaahay aad u cararto wa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'id billah innahu huwas-sami'ul 'alim
هدي الشيطان وسواسيو كفساديو إلهي مغنقل الله كعر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم إلهي مغنقل بدصو وحكم ذا إن أد بدصتو سيدو كلا أذكار فربضان وحاج تصو أرورتي وشياطين تا إيه مخلوق ودن لغا يحس حدو وقلبتي محو هاي صباح دي جوجش مركات تكتو مركات محو هاي سوق آديسو كل أذكار تحصينات باكر حرس حد الله قلت لك لينكو إلى ليان وحيالها أنا كنت ذا قرآن كأخرس كيسة يتدبر كيسة قارهاني لا تسكو أخرده معوذتين كإيو محو هاي قل والله قارهان سورة برب الناس يضع كل سورة داسي وحيكون ريجيسا الاستعاذة من وسوسة الشيطان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإسقون أما تشينك أمتك هالنقطة أما إنسك هالنقطة إلهي بعد ما ينجلس أو حد كم ينجلس ننكا يوسواس كيس سومارت مركا تلابوين كمركا قادو واتكفوا يوباني حديث لكن آذان أذو استوين أو وحي هر أرضه حير مركز دم واحد قاعد دونتا أدوالته أما الدين تينو كوجود درو كاسارة وأنت عليسك حملي كروي مركز دم بقى ترى هذا واحد ما بحملي كرتيده إسقطك مالي بمركز تلابو كل قاضية والله أعلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. سائلك كنت يكواد وحولي يا شيخ هديك تعسيد الله قالوا هدي قريبي قال لي يبوك أنا معوني كرا هدي أتكتو يا هدي قريبي قال لي يبوك أنا مسكوميت باشا. ضدك مركز لقى دينتو أما قريبي لقى دينتو أيقو حمتا مكريان فردي يقول نمردقان شرعات وحوي إن إيجا العاويو maalmaha ay murugaysan yihiin oo culays ku haysto in jikada loo galo raashin banaanka looga keeno iyagii la caawiyo nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu leeyahay Jaafar ibn Abi Talib markuu dhintay Jaafar markii la dilay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam geeridii soo gaadhay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam isna'u li ali Jaafara ta'aman Jaafar aalkiisa dadku ka tagay cunto u sameeyay فقد أتاهم أمر يشغلهم وح مشغولية ويميد والبهار يمرق باهيسته شي كذا أقل أو كنت أكريه النبي صلى الله عليه وسلم أو أتاهم ما يشغلهم مركا وحيليهن ضدك يجي مشغول سن أو مرقي سن أو والبهار سن أو لبات هيسن يا هذانا أنت جوجل لا نحلته بهذانا يجي شي كذا قليه أو لدول فردينيا أو لا حليسينيا صحمة جرير بن عبد الله البجلي نوح ليه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة كلن كاغوري لغد انت اللي سوق إيماني يعنتظر لغو كرسانيو وحان كتيرين شرني بلا جرير بن عبد الله والصحابي وحان كتيرين شرني برورتي شريعة دي باي إني كميتا أيام كتيرين شرني مركوا خلط علماء هي مذاهبتنا way qabaan intoodu dhamaantood madaahibta afarta waxay qabaan inay bidca tahay shariicada khilaafsan mar haday sidaas tahay waa wixii lagu kariyo iyo cuntada lagu kariyay markay ugu yar tahay cunideedu waa karaha ku jirta hadii kale waa xaraam markay ugu yartaa karlaan waa bidca waa ama hal lagu keeno guriga hal lagu keeno ama aduu lugaha ku raadso soo xun waa isku mid الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الأم وحكوليه وأكره المأتم مأتم كوا إسوئمات كميت كجداشي سلسوي ما دقوريس عنتنا اللعونة يهدي لجا كريه أو يكسو تشيدو ضد أن كان قاعد هين أو نحل كلها أو أجونها حوله هذه هدي كسو تشيدنا وحران إسكعد أو مركا واحد نقول إسا إن أجون حوله هذا عنتي ويكسي هالي سنتي مركا وبدعو هذانا محاذير فربضن الشرعي يعني وحوي حنبار سنوات مركا سي اللوغويو وين أرنتها إيضا آذان وحكو درسان انت ذي ذنها عولن هدي اللوغو كيانا إسكحلي والله أعلم
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سائلك كنت يلباد حولي هي شيخ قبل بان قرصدي لبدي كن سقالي تمنكي لبا بالوح كير بان اسقبني يدا ايانا ورقدي قد البطيو waxay igu tiri warqadaydii isii cudur daar la'aan meherkayguna waa cafis maanta oo la joogo 2022 bay soo wacday waxay dhaahdeen walaal culimo ayaan arrinteeni weydiiyay waxay igu yiraahdeen meherku ma cafismo ilaa wuxuu laga bixiyo marka sheekh meherka iyada igu lahayd iyadaana iga cafiday miyay wax igu leedahay masaladaasi khuluc baa la dhahaa labada dhinac inay ku heshiiyaan in furitaanku ku dhaco qaabay raalli isaga yihiin ninkuna uu dalqadaha wax dhaafsado ama meherkeedii iyo cafiduu dhaafsan ama xoolo kale uu dhaafsan sidaasaa lagu isku furayaa lagu kala tegayaa khuluc baa la dhahaa furitaanka caadigaana wuu ka duwan yahay axkaam ahaan wuu ka duwan yahay sidaa marka la isku furo ninkuna khiyaar uu haweenayda ku soo ceshado ma laha iyaduna khiyaar ay kaga soo noqoto xoolihii ku soo ceshato ma laha sababtu maxay tahay waxbaa la kala gatay haddii wax la kala gatay nin walba wixii loola dhaqaaqa ma badeecan kala iibsanay aniguna lacag baan kaa qaatay adiguna badeecadii baad qaadatay nin walba soo qaybtiisa ma yeelan nin bal qaybtiisu la tagaya waana furitaanka nooca aan loo ogolayn ninkii sameeyay haweenaydu intay ciddada ku jirto inuu rajactu dhaw laana waa dalqa baa'ina waa mujarrad uu furay خلاص xarigeeda luquntu saaratay waa dhaqaajis maanta hadduu rajactu ku haya adaa yaqaana waa adaa lagu dhahaa ma soo noqonayso sidaas daraadeed khuluca gabadhuna kama noqon karto xoolihii ay sidaa ku cafiday asaguna iyadii kuma noqon karayo guur cusub bay isguursan karaan guur cusub haday rabaan yay isguursan karaano ay isdooni karaan ama hadalka ay wadaadadu ku yiraahdeen haduuba jiraba wadaadada haday ku dhaheen meherka isagoo wax laga bixinin ma cafismo warkaasi war wadaada ma warkaasi war culimo ma aha malaha kuwa caama baa culimo isaga dhigay oo muxuu ahay marar badan dadka lu gooya Allah tabaaraka wa taala quraanka kariimka buu ku sheegay haweenku inay meherkooda cafin karaan fi suurati an-nisaa waxna way ka cafin karaan kullina way wada cafin karaan fa in tibna lakum an shay'in minhum nafsan fakuluhu hani'an mari'a kullina wada cafin karaan qaar kamidana waa cafin karaan waxna waa ku bedelan karaan iyaga iskale marka meherku isagoo wax laga bixin lama cafin karayo saxma waa khalad gabadhaasina kuma noqon karto wixii ay dalqadaha dhaafsatay kuma laaban karayso wallahu a'lam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik sa'ilka konton iyo saddexaad waxa leeyahay sheekh gabadha isqulucday ciddo miyay tirsanaysaa haday tirsanayso ciddadeedu waa imisa ومسألة هذا كان هذا إنه خلوع عهيد يعني هو يندي سيدي هذا عن سوشيال لو فري وسيدا إنك كل التجان عدة ملاذة ها عدة ولاذة لكن ما حيكون عدة ترسانيسة عدة ومدة أي دمر كوتشريان أنت كوتشران على جورسن كريم إنك هراء مدة حنبنانا يا عدة ليلة مركا عدة علماء الجمهور توضح قبان فرين كعادي قابل لعدتها وصدح عادة إنه هشاء سيدا سوى فقهاء سيء بديهين لكن مذهب كلات شير الله هي هل عادة بس يكون عدة ترسانيسا وليها هريري دمر كلا فري بالعديهن لعدته طلاق وكلويان بينهم لكن سيدا ابن القيم وحقيقتنا يوحوليه هي هوين إذا لا محو هاي خلع لوgu furay oo sida ninka ay ku kala tageen in cidadeedu saddex caada inay tirsato ay laga dhigo wax hal nin oo saxaabada kamid kama sugnuulay waa uu mas'ala gadaal dambe fuqaadu isku khilaafeen ra'yiga labaad waa inay san sheegnayba ay cidadeedu hal caada kaliya ku cida tirsato
oo markay ninka kala tagaan hal caada inay heshay sugi kadibna way guursan kartaa ra'yigaas culimada qaar kamida maray wuxuuna ka sugan yahay saxaabada qaar kamida sida Uthman ibn Affan Abdullah ibn Umar waxa doortay al-Imam ibn Mundhir aymada Shaafi'iyada kamida waxa maray Ishaq ibn Rahawiyah Ahmad fi sahih riwayatayn ibn al-Qayyim Sheikh Islam ibn Taymiyyah dooranaya waana ra'yiga xoog badan waay labada ra'yi ka damba xoog badan oo sida haweenta la fasakhay oo kale hal caadi ku xidda tirsanaysa maxaa daliil waxa daliil horta quraanku wuxuu tilmaamay fi suurati al-baqara talaaqa iyo khulu'u inuu kala duwan yahay markii laga soo hadlay talaaqi at-talaaqu marratan oo dalqadii saddexaad gadaal laga dhigay fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu gadaal laga dhigay laba dalqadoodna horay lagu sheegay dhexdooda waxa la geliyay khulu'i marka dalqadaha saddexda ah khulu'u kamid maaha ala sahih waana sida ibn Abbas ay mareen mar haduusan dalqadii saddexda kamid ahayn dalaaq maaha marka waa wax ka duwan wax ka mahan ka duwanaan karay inay hal caado ku cidda tirsanayso waxa ku tusaya xadiidka saxiixa ee laga wariyay ee warinayso Rubayy binti Muawwid ibn Afra haweenaydii Thabit ibn Qays ibn Shammas ee soo sheegnay ee ninkii nabiga u timid ku rasuulka Ilaahay oo ninkaygan diini akhlaaq doona ku ceebayn maayo ku dhaleecayn maayo laakiin waan ka haday oo waan dhibsaday oo lama joogi karo oo kufri gaalnimo yaani kufri baan islaamnimada dhexda kaga baqaya rasuulku dhigi jiray sallallahu alayhi wasallam beerti ma u celinaysaa ha isagana fur u dhigi jiray ninkii waa haweenaydaasi waa khuluqi ugu horeeyay oo islaamka dhexdiisa dhaca waa inta la garanayo rasuulku muxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu amray an tatarabbas haydatan wahidatan fatalhaq bi ahliha hal caada kaliya inay sugto oo ku cidda tirsato kadibna ay dadkeedii aado حديث كاس واحد صحيح النسائي الطبراني الصوصاري وانا حديث صحيح بطرقها حديث كاس مركب وحوجينيا حديث القضاء لك يبسد فورتان كله خلع كله هوينيدو سيده خوغ بدن هل عادي كحده ترسن سدح عاده معها لان نينا يسوغيسو او سو خشنيا ما جيرو عادده هدي هشو way guursan kartaa saasa xoog badan waa mas'ala khilaafiye wallahu a'lam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك كنتني أفراد حوليه شيخ صلاة دحدة دي عن نسقان يسيادو عن سمايو ملبت شيء أيات سجود سهوي لا يمانا يات صلاحان أنا قلت تحيات كل حكة تجي حتى نسجود ديراد حاجة دم كليمي وحلا يقرب سجود سهوي التحيات كي عن كتجي بس سجود سهوي سجود ديراد كا مس حل سجود سهوي ويبو فلان حديث صلاة دحية الروح ودور جور سهوي كله ومثلا التحيات كده هو سهوية هذا ركعت سهوية هذا سهوي قاكو بطي سهوية ذا فرح بدن هل صلاة كلية قلي وحاكو فلان لبس سجود بس سجود سهوي والله بقى بس حاكو فلان ما هنا سهوي كستاء لبس سجود الله يمانش ومركز صدح جور صلاة دحية كو سهوي ده إلى لح سجود لا يمانا نسماه كل وحقوة فلان لابد سجودود السهوي قوة فلان وحي سهوي بدن صلاة هذا كلودان وانا سيدا أي قبان جماهير أهل العلم ووحي إليهين ويسدح قلياني مدول بقوني دي الله معاملون مايو والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة دي سينا لقامها إليه ما ينصمينين وح إيمان كري أهيد كون إيمان كري صورة قلتين يكتب من هذانا لقامها يو إني سجود سهوي فربضان أي لي مادين هل سجود سهوي بين لي إيمان جري صلاة قضاء الشيء والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك كنت عشاناد وحولي هي شيخ والد كي قناعسي بولي هي أنا قناعسي دي سميت كميدا أيان وحيا وأحبار الشانا وانكوشيرا حوغا لبدو دينا إسلوادو ويقول عسلادين إنا وأحبار الشانا وقعو أو أن إسكدا يشقاد أيان ربا أخرن كاسا دي والد كي كحمادو عقوبة ما يقعد عيسى حالي بان كسو جوابني مسألة روكالي وحي آن معصية أهين والدك أطيع وحا أدربت مصلحة دي وحبر الشضع
iyo waalidka rabitaankiisa haddaad iswaafajin kartana iswaafaji haddaadan iswaafajin karayn cilmiga aad doonaysana markaa uusan fardu cayn ahayn markaasi waxaad ku qasban tahay inaad waalidka hadalkiisa yeesho leanna waxa weeye cilmiga aad dalbayso hadduu cilmi adduunye yahay ama uu kii shareecada laakiin aan waajibka cayniga ahayn kifaa'iga hadduu yahay waxaa ka xoog badan waalidka amarkiisa marka waalidka ateec oo amarkiisa yeel haddaad rabto inaad wuxuun samayso siduu rabo si aanayn aad samaysana intaad ku noqoto qanci oo isagoo qanacsan oo raaliya markaasi wixii aad samaynaysa samee wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك كنتن اللحاد وحوليه شيخ من إمامة أيا تجيي ضد إسقوا أن ويسقبن ضد كاس إمام كاس وتجيي سلاد ودم حين نوعيسا إسقى كتشبتي لكن أنا قوي نوشرته صوابك واسدة واسمس الخلافية وجماهير أهل العلم وحي قبان إمامك salaadiisu hadday jabto inaysan salaada ma'muumiinta saameynaynin oo iyagu salaadoodu ay u soconayso sida fiican waxa weeye hadday salaadu ka jabto ama wax ku yimaado inuu ma'muumiinta qaar ka mid oo safka hore taagan uu meeshiisa geeyo istikhlaaf baa la yidhaahdaa oo ay dadka salaada ugu dhammaystiro isaguna hadday weysada ka jabto iyo hadday ka jabnayd oo ishalmaamay oo weyse la'aan uu galayba markaa uu weyse raadsado waxaa laga qaadanayaa عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكي إسقوا صحابة تجينا صلاة الصبح من ديدا لقلي ونكي لا يلا كورد ومن ديدا قلنش عمر صلاة دي وودي كرواية كدي ابن عبد الرحمن بن عوف هرمري عبد الرحمن بعد صلاة دي ولما يستري ركبدان وصحابة وكوي ضاوع وكوجاري مركا إمامك هذي وحكي مادان وينو استخلاف سميه وعيد كلا بوسكي استاجيو dadkuna salaadoodii ay wataan marka cala raajix salaada maamuumiintu waxba noqon mayso ama weyse la'aan ha ku galo markii hore ay halmaamo ama isagoo salaada gudaheeda ku jira ha ka jabto laba gooraba isagoo bay salaadiisu jabtay laakiin dadka salaadoodu waa sax wallahu a'lam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik sa'ilka konton iyo toddobaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan ballan ka qaaday naftayda oo ah inaan shaqeeyo lacagtaasna aan ku bixiyo masaakiinta oo aan ku quudiyo oo ku sadaqaysto marka wiilasha walaalaha ah lacag bay weydiistaan anna waan u calool jilcaa oo uma diidi karo marka ballantaydii ma waxbay u dhimaysaa arrintaas ayagu soo masaakiin ma de wax ku weydiisanaya markaad adiga masaakiin ka fog la raadsanayso ayagii baaba sokeeye ma sokeeye nimada qadinayso yani waa faham khaldan waay haddii ciduun mudan tahay wax siintaada iyo sadaqadaada cidda ugu mudan waa xigtadaada ayagaa ka mudan kuwaa shishe masaakiinnimadii aad ku xidhay bixintaadana way leeyihiin qaraabanimona way la dheeryihiin adigana laba ajir baad ka heli bedelkii halkaa ajir keliya aad ka heli laba ajir aad ka helaysa nabigeenna sala allahu calayh waalihi wasalam waxa uu leeyahay alsadaqatu cala almiskiini sadaqa والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة مسكينك عند الله شيء كده حينين وحي آتسيسو والصدقة لكن متك حكتدا هذا واحد كوب بحسو أجر صدقة هي قرابة حليلين أجر كذا لوضع صالحه ليا رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا ولا لها با كم مدن أو قرابة هذا كم مدن ضد شيء سين توضع كونا كم مدن أيها سي مرك إن شاء الله تعالى وحي كسوها هرينا مسلمين تاقل مساكين توضع سي أحمد يدارمي ترمذي ابن ماجه صار حديث كوار حديث صحيح هو والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك كنتن يا سجيدات وقبض وحيت الشيخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أنا حاسس كيسة جنة كمد نقضة ما كنت عايز أنكرها ومال في عم بالله لكن علماء قار كم إذا لما لا أركي ده ينوان أركي لكن وحن كبقيا إن النقطة الاعتداء في الدعاء يعني الدعاء ذي ومالين الله هنا لا أدي
yaan ka baqayaa inay noqoto maxaa yeelay ilaahu jannada igee oo naarta iga badbaadi oo jannada firdowsa igee laakiin hadda tafaasiil hooso inay dhici inaydan dhacayna garin haddaad gasho nooc ictidaa baa ku jira xadiidka culimada qaarkood ay taxsiininayaan ee Cabdullah ibn Mughaffal oo nabi ka waran sallallahu alayhi wasallam wuxuu maqlay Cabdullah wiil uu dhalay oo dhahaya اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني الله وحكوا ويدي سريا صرت عد الجنة نحن ذا ومركان الجنة قالوا مدك تجحت مركز وحول يا بولي سل الله الجنة وتعوذه من النار ويل كيجيو إلهي الجنة ويديسو عذابنا كان بضم قلب محايا للنبي محمد بن المغلي صلى الله عليه وسلم الله سيكون بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور وها إيمان دون ضد أمضي إذا كمذا والدعاء إيو ظهارة كحد كتبا مركا هذه سرعت أو شنو هالك كجتها لو ميدك ها قبض دونتو واحد يقول شيء مركا إلهي شنو يديس عذابنا كمان نبي محمد صلوات ربي والسلام عليه لقرن مايو إن أمديسا دمر كودا دمر كأمد قار كم إذا إن حاسس إنه قندونا لما يقانو كليه وحلا هيا إن حاسس كيسا الدنيا دو أي آخر حاسس إنه قندونا لكن دمر ككليه الدنيا ده أمديسا أما كوا كلابا إنه قندونا حديث ضعيف أجرا oo Aasiya iyo dumar dhowr ah yaa Ilaahay ii guuriyay dhahaya laakiin ma sugna xadiidkaas mas'ala marka aan la garanaynin boorto inaad waqti isaga lumiso Ilaahay nabiga xaas iga dhigta aad ku hayso oo inay jiri doonto waa la garanayn wax ku dhamaa jira mas'alada kale waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay dumarka adduunka lagu guursaday aakhir markay tagaan raggoodii adduunka ku qabi jiray ayay dumar u noqon doonaan gaar ahaan ninkii u dambeeyay oo guursada mas'aladan waxaan mar baan ka soo hadalay mar baan ka soo hadalay oo ka soo jawaabnay Hudayfa ibn al-Yaman baa xaaskiisa wuxuu ku yiri in aradti an takuni zawjati fil janna fala tazawwaji ba'di fa inna al-mar'ata li akhir azwajiha yani xaaskiisu la hadlay wuxuu ku yiri haddaad rabto inaad aakhirajna xaas iigu noqoto aniga gadaashay guursani buu ku yiri nin dambe kuguma ogi maxaa yeelay wuxuu yiri haweenaydu ninka ugu dambeeyo adduunka ee ay guursatay aakhira xaas ugu noqon doonta wuxuu yiri walidaalika harrama Allahu ta'ala ala azwaaji rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam an yatazawwajna ba'dahu sidaas daraadeed Allah ya Allah wuxuu u diiday nabiga sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa gadaashiisa in la guursado maxaa loo diiday laana waa xaasaskiisa aakhira waay gadaashii marka lama guursan karo nabiga sallallahu alayhi wasallam marka adiga haddaad adduunkan hadee aad nin la'aan ahaanaysana oo nin la'aan u ahaanayso nabi maxamed baa ay guursan doonana wax la hubo ma haddaad adduunkan ninku guursatana ninkii aad guursatay baad aakhira nin u xaas u noqon doonta طبعا waxa laga yaabaa ishkaal ay inuu yimaado oo ninka adduunka aan isku kadeednay hadduu mid khariban yahay oo kuba rafaaday haddana ma aakhira qoorta la ii gali doonaa marka taana jawaabteedu waxa weeye aakhira marka la tagayo dadku dadkii ma aha dhaqankii ma aha abuurkii ma aha wixii oo dhan waa la bedelayaa wixii oo dhan waa bedelmi doonaa insha Allah ta'ala marka arinta iyada ah walaw culimada qaar kood aan arkay oo dhahaya dib ma laha haddana runtii ishkaalaad badan baa ku jira waxa fiican wixii aad ogtahay inuu yani jiro ilaahayna ka aqbalayo rasuulkuna jideeyay inaad ilaahay ku baridaa fiican ma sugna nabigu sallallahu alayhi wasallam dumarkii la joogay oo janno jeclaayo rasuulka jeclaayo inaga jeclaa inuu ku yiri soo ducaysto waxaad ku tiraahdaa ilaahu nabi maxamed xaas iga dhig ma lahayo marka gabdhaha waxaan dhihi lahaa meel kale u foofaan dhihi lahaa wallahu a'lam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك كنت يا سغالاد waxa uu leeyahay sheekh soon badan ayaa dhaafay anoo baadiyad jooga diintana aqoon uma lahayn
laakiin waan ogaa in uu waajib igu yahay haddana maan wada soomi jirin markaa xukunkaygu sheekh muxuu noqonayaa laba arrimood baa laga rabaa inaad toobad keento oo wixii aad samaysay khaladkii kaa dhacay aad uga qoomooto ilaahayna dambi dhaaf weydiisato soonkii aad ka tagtayna inaad soo qallayso weli waa ku saaran yahay kaamana dhicin inta jamaahiiri ahlilcilmi saasay qabaan soon laga tegay ruuxa ka dhici maayo ilaa uu qalleeyo marka soonkiina qalle ilaahayna u toobadkeen wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك اللحدنات وحولي يا شيخ نبينا نصوبا صلى الله عليه وسلم وحولي قفك مركا وقبرك لدغو مركا قبرك لدغو وحو قبرك ليهي قبشو مسلميه قلبا مركا عيد قبشداس كبدباديسا ما جرتاشا الظاهر وحوي سيده موقتا وحديثته كم موقتا عدادسك اما قبشدا متكاد كعبرته ضقده oo qabriga ka dhacayay wax ka badbaadaya inuu san jirin ayaa ka muuqata ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ah ahadiista macnaha tilmaamaysa xadiidka Abu Ayyub al-Ansari anna sabiyan dufina ilma yar oo qaan gaarin ba waqtiga nabiga la duugay sallallahu alayhi wasallam markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam law aflata ahadun min dhammati al-qabri la aflata hada as-sabiy hadday cid uun qabriga iyo qabashadiisa uu ka badbaadayo ka baxsan lahaa oo ka fakan karo ilmaha yar baa ka fakan lahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ilma yar hadduu fakan waayo fakanayo marka ma fakanayo lama fakanayo waxa si xoojinaya diidka Tabarani soo saaray ibn Hajar iyo Haythami Sheikh Albani iyo waxay leeyihiin waa xadiis sugan oo saxiix waxa kale oo xoojinaya حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما وكسابسا جيريدي سعد بن معاذ صحاب جليل وها دقالكي وحال الروعي محوها هاي أحزاب صور روعة على سوق هذا مسجد كالنبي قال الله صلى الله عليه وسلم هالبولة فرطي مركو حوقات شوقي كدي بنوا جيريودي مركا نسحابي وقالي بوها قصة عجيب ومركلية قصة روايات كده ويكل دويهين لكن هل ميل بالوسو أروريي لفائدتها أن دين دول مرو سلام سلدا على أقل الأذى هل بولها أي سعد نبر كجالي لأنه قاس نواه مالنتي خندق كدبنا وعصلادي إسلام اللي هذا رفيدة oo dhakhtarad ahayd oo dadka dhaawaca daaweyn jirtay baa loo keenay halkaas ay markaa ku baxnaaninaysay nabigu sallallahu alayhi wasallam marka uu galabtii gaadhu soo mari jiray markaas wuxuu dhigi jiray kayfa amsayta warsacadu seetahay see galabtu kugu soo gashay caaw seetahay subaxdii markuu gaadhana nabigu waa soo mari jiray kayfa asbahta ya sa'ad see waagu kugu bariyay seetahay markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u sheegi jiray xaalkiisa habeenka uu cuslaan doono oo marka xaaladiisu cuslaatay ayaa markii ay dareemeen in lagu soo kordhay bay qaadeen qoomkiisii baa qaaday meel guriga geeyeen rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu yimid sidii caadada u ahayd isagoo weydiinaya war away sacad waxa la yiri waa la qaaday waa la tagay meel heblaalka waa meel yar durugsan nabigu sallallahu alayhi wasallam uu baxay marka si degdeg uu ku dhaqaajiyay صحابتي اللي سعودين وين راعين فأسرع المشي حتى تقطع شصوع نعالنا وسقطت أرديتنا من أعناقنا صحابتي وحيلي نبي أردكي يدقدق ودقدقة هي كبيهنا وين نقو أم بله وحي كركر رجع صارنا ونقطع مركزان النبي قال شيء ودعونا وحكون يا رسول الله أتعبتنا في المشي صعد كيف نقول رفاضان يا رسول الله والرفاض على الله ذاته وكبيه جوء وكجاري ويني وكورفان له مركز النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة وحنود دقيقة وحن كيابا يا إن الملائكة هرتين رقضه وينوجه هرمرته سيدي هذا كور حنظلة ودقين
حنظلة غسيل الملائكة نيجي صحابي جها وملائكة جنازتي سبقلي سيدي شو كلا يكيا ويقول أنتي نوجه مرتين يدقان ساسا ندق دقة النبي صلى الله عليه وسلم قولي جيبوا من سعد يا لي سقوا الله نقيه هو يدين مركا أي أويس أو أي نوع برورة أي أويس وإلى هاي وإلا سعد سعدا براعة وجدا بعد آيات له ومجدا مقدم سد به مسدا أيضا سيداله ينبي مشتري صلى الله عليه وسلم مركز أو النبي صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا سعد هويني كستو برورنا يسابين بشيء يسابوري إلا سعد هو يدي موي يعني أمانتي وربوي معنا ننكو سواءها لكن إسلامها كله برورتا روح مركو دنتي أمان بالجلد دلنا ما حبك تشر صومالي ده واحد لهم بهداد أمان ربطنا دمو يا هداد حير ربطنا قرصي ده مركا أمانتي أماني سبنا بقول صلى الله عليه وسلم ورنتي برسول صلى الله عليه وسلم مركي الله صار سعد وجنازتي سي الله صوق هذي وقبر الله سي وذي أيا قل يا منافقين تكمل ذا وحي لهذين ما أخف سرير سعد أو جنازة سعد ورسعد محوها هاي سرير تلقوه وبعد نعش كوا نعش كيس فضوضها يعني فوق الدوريت يكوضه مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم وجدنا ماشان كلنا هوات لقد نزل 70,000 ملك شهدوا جنازة سعد بن معاذ ما وطئوا الأرض قبل يومئذ تضبات كن أو ملك أيا جنازة سعد كسوق يبقش مالك كهرنا ولي قطولك عقمين صارين بنبي صلى الله عليه وسلم تضبات كن أي ملك وحيوي مادين جنازة سعد بك سوق يبقلين ويمادين رسولك صلى الله عليه وسلم وسي وذي مركي وحو يدي لقوتو كذي وقبر قال لك لي وعرضي اللقود ذي أي نبي تصبيح ذي صلى الله عليه وسلم فصبح وصبحنا طويلا سبحان الله أننا والله تصبيح سنة ثم كبر فكبرنا الله أكبر الله نبي نوا تكبير أننا والله تكبير سنة مركز أوحى لي يا رسول الله لما صبحت ثم كبرت محال سبحان الله أكبر تنفرها بدن وتري لو ما أقول تري مركز جنازوين كي أسكت ما دو تن محل عاي مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش يعني أدون كان وناكسن عرش إلهي سببتي صلى الله دقائق وحديث قالوا يسجن ملك لو يمدو عرش الربي عد إسجن سببتي سلق الشيء سعد باكتشري يريد سعد إنه عاصوها مركب وحول إلى أدون كان عرش إلهي بقول دقائق وفتحت له أبواب السماء سمد إرديه دين الله فري وشهيده 70,000 من الملائكة تضبات كونوا ملائكتنا أي جنازتي سكسوا قيب قالين لقد تضايق عليه قبره لأنك أنت أدار كيسانا قبر جيبا كعدي ديبي برسولك صلى الله عليه وسلم ثم فرج الله عنه كذبنا إلهي باكف إذو كدركي مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم فلو كان أحد ينفلت من ضغطة القبر لانفلت منها سعد بن معاذ هذي عذون عريرك يضغضض عدادس كقبرك عذون هذي كبد بادلها سعد باكبد بادلها والنبي صلى الله عليه وسلم مركا هديب سعد هوشي بقو محوها هلس قلي يا كلو بدبادي مركا يا ما يتكلم بدبادي كريس سيدا صدرات على الصحيح مؤمنين تي مسلمين تهكوك لدوان هذين سيوحوا دعيان يسيد اللوغة فيدي يسيد اللوغة فضودين هكوك لدوان هذين لكن لا شك عدك بدبادي سيئني سنشرين ظاهر كأحاديث تاكم مقاتا النبي صلى الله عليه وسلم كسوغا إلهنا تبارك وتعالى هنا بدبادي والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك لحدني كوباد حولي هي شيخ قبل أيام وذا السعني إن مدأه وحن جعلنا نقول سدو والسماء يصندعين قبل داس إن بدن أيام كلا سني الحمد لله أنا قوان كتوبت كأني سؤال شيء وحي تهي كو أنت مرء عن كسنيستي مدول بمطوبت كان جارها يا اللي قربا سؤال شلبات إيادا oo aan kala sinaysanay hadaysan ka toobad keenin wali
ma wax dhib ah ayaan ku leeyahay midda hore horta dembiye badan hadduu ruuxu galo ama hal dembiyo soo noqnoqday ha noqdo ama dembiye badan oo kala duwan hadduu galo ma tawbado fara badan baa looga baahan yahay mise hal tawbad baa wada anfacaysa way jawaab su'aasha jawaabtu waxa weeye hal tawbad baa ku filan oo shuruudeedii wadata oo wuxuu dembiye galay uu ka qoomamoodo uu go'aansado inuusan ku noqonin daayo oo ka dhaxbaxo iyadii asbaabteedii xuquuq bini aadan hadday tahay ka xalaaloobo ama celiyo hadduu shuruudeedii la yimaado hal tawbad baa ku filan zinadaa faraha badan ama khaladaad kale ruuxu uu galay oo ilaahay ka galay hadday xuquuq bini aadan ku saabsan tahay ayadu wax weeyaan waxay u baahan tahay ciddii iska lahayd inaad ama ka xalaashato ama u celiso ayadu sida fudud lagu saamixi maayo waa dulmiga ilaahay uusan ka tagin uusan daynin wax taa waa mid waaye waana sida culimada balankooda ay qabaan nusuustana laga faa'iideysanayo ama arinta ku saabsan ayadii maadaama aad xumaan iyo macsiyo iyo dembi aad wadaagteen adigiina ilaahay ku waafajiyay inaad toobad keento ayadiina haddii aad xidhiidh ka hayso ka shaqaysay u toobad keeni lahayd oo ugu kaalmee oo islaax inaad islaaxiso isku day maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi towbadda wuxuu haddana daba dhigay islaax taaba wa aslaxa marka wixii aad halaysay inaad hagaajin karto isku day haddii ay suuroobi weydo adiga towbadaadu sideeda waay sideeda u madax bannaan tahay iyadoo dee khaladkii kusii socoto laakiin markaad ayada aad kala shaqaynayso ama kala hadlayso inaad toobad keento is-ilaali mar labaad wixii aad baratay ha ku noqonin laanna asalka waxyaalahan oo kale marka laga go-ayo waxaa ka mida inaad goyso ciddii aad wax wadaagteen oo xumaantaasi aad wadaagteen laanna wax isbartay isma daayaan marka haddaadan cabsidaa qabin ka shaqaysay u toobad keeni lahay haddaad cabsidaa qabtana agteeda ha marin sii carar oo toobad keen wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك لحدا يا لباد حولي هي شيخ واحد جرا رج عن صاحبنا هاي ودولة حلال كهيا مشاهر كودنا ويري هي وبيل كود بكما بدنا حتى أنا واحد أركي سايق ولا عقبة بحين يا أما استعمالية مرة كقار إلي عسومان أما أن وحسلع إنه يلا جيابا النوح عن كشكيا العكتاس إن يتهاي حوله أمضى مركا حاي قلب بان شيخ كاس asalku waxa weeye waxna waa shaki iyo tuhmo waxna waa wax lagu dhisi karo sharcan asalku waxa weeye ruuxu wuxuu wato meel uu ka soo jeeda hadaadan hubin ruux muslimna uu yahay asalka waxa loola mucaamaloonaya inuu leeyahay oo dariiq sax xoolahan ku soo galeen saasa asal ah laana waa muslimkana asal waxa uu inuu is ilaaliyo haddaad ogaato inay xoolahani si khalada ku soo galeen ama xoolo dadweyne oo uu dhacay ama ma ahe wax kaloo si khalada ku soo galay haddaad ogaato markaa waad iska ilaalin haddaadan ogaanin oo markaa aad isleedahay war waxani ama uun meelihii uu joogjoogay wax ka soo qaadqaaday ama wax khayaamay ama wax isdabamariyey laakiin aadan hubin caddaymana aadan u haynin markaasi waxa weeye tuhmadaada iska liq waad la mucaamaloon kartaa لأن أصلك وحويان الأصل السلامة في المسلم أصلك وحويان إنه مسلم كنا بطقبه وحوك عندي سكوتشرنا إسقوا إليه بقى أصل كان اللوجا ما بحكر التهمة كلية اللوجا ما بحكر بل مركا تهمة هذا والله ما جيبه هذه قال لكن حق بعض هذا هاي ورع مركل علم باب الورع حلال ميرا شأهان وحي شكي كاقلو إن سجتكتو وهو القوان هذيك ويا لوه وسك حلال ميرا نيس أما حكم رسمي وحلال إيه حرام ويهدي الله دهيو مركا waxay u baahantaa in cadeynteeda la helo hadaan cadeyn lahaynin ama madaxweynaha ahaado ama wasiirha ahaado ama wuxuu doonay ha ahaado wuxuu wato isaga iskale meel ka soo jeedaan hadaan garanaynin isaga iskale waadna la mucaamaloon kartaa waa sidaas way asalku wallahu a'lam جزاك الله خير بارك الله فيك سائلك لحدي الاستحاضة حولي هي
sheekh sakada ma lagu bixin karaa dhismaha masaajidda haddii ay dhacdo oo lagu bixiyo se ma ansaxaysaa zakada masaarifteeda lagu bixiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala uma wakiilanin cid kasta cid kale isaga cadeeyay إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله سيدات سنفي بهالك إلى كل شيء سيدات قيوات سيدات قيوات بإسكال الزكاة سيدات دام اللقوة وضع السمية مش قيب على سين كراكلية ومثل خلافية مساجد مركز اسمه هذا سيدات داسي كمعدة صوما يعني فقراء ما مساكين ما تدي ميزان ما أو ضد صعوطة ما أو محوء هاي أنت اللي الشيء منا ما ماشى ونسليه كرام يسوق لي كرام وفي سبيل الله واحد وفي سبيل الله هنا جماهير أهل العلم وحي قبان سلفا وخلفا جماهير أهل العلم وحي قبان وفي سبيل الله جهاد قال لك الإمام أحمد وحي الحاقيان حجك مركا سيدا مركا اللي يداهدو مصاريف الزكاة اللي بحيو مساجد ميالك ما سوقشو مسألة لواد العلماء ليهن رأي قابتا وسيدا اللي بدين هيا وحي ليهن حدي اللي يداهدو في سبيل الله هلا بلاريو ومفهومك في سبيل الله هلا قدقو مجالاتك خير كورن هلا قدقو آيات حصر قيدي بردوبايا وأها إنما الصدقات للفقراء حصر إنما إفايدين يسو أيا لما يبيليه ومعنيه ببلارنيا وحكروا إليهن حدي اللي يدادو مساجدها اللغو بحيو زكذا وحا إيماني صدتكم مساجد يتشعليهين تضبطي نوع كلا العديي انت اللي قال لي ان مساجد للو دعو صوما هذا waxa dadka laga kari laayay warmeel dadku dhimanayaan gaajo u baabaayaan halkan ku bixiya may xaj iyo umraan ku aadaynaa weelay hadii la yiraahdo marka zakadiina masaajidka siiska ku dhisa masaakiintii halkan baabaayso iska lahayd baad masaajida gelinaysan sooma masaajidii kuma cada meel ma ka soo gali kartaa way doodo kuwii aan ku cadayda iska lahaay ilaahay cadeeyay baa waxa dhacaysa in la garmariyo sooma sidaas daraadeed sida fiican wax weeye loona badan yahay in masaajidda lagu dhiso wixii kale loogu talagalay zakadana lagu bixiyo masaarifteedii kale sideed ahayd ee aayadu ay sheegtay wallahu a'lam jazakallahu khayran barakallahu fiik saailka 60 iyo afraad waxa uu leeyahay sheekh qof islaama baan ku yiri waxa tahay qof bila kitaaba wuxuu xukunkiisu noqonayaa maxaad ka wadaa ruux bila kitaabata يعني الدين ملهي دمياء داد معناها كوضا وقاليسين واحد روحان دين لهين وكتاب لهين وقال هذا السيدة معناه ونقضه كودي ودم بآدو إنه خطيرة واحد روح مسلمة إنها تقول هذا قال باتهاي أما الدين ملهيد أما مسلم متهيد وأرين هالي سواء ودم بيد إله لقى قالوا كو أو بكمت نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه هاي حديث صحيحين كويمد أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما روحي ولالك كوي هذا قال يهو لو دنبي قاس حليسكي سؤوليه هاي لو وضع مدهم بالله النقليه روايات قال سيحة يسيو كان او قال كويري هدو قال يهينا استقى قادنيه hadduu sagaal ahayn oo muslim yahayna kan yiri bay ku soo noqonaysaa kelimadu marka meel la aan dhixmayso waa arin culus marka culimada qaar waxay leeyihiin waxa ku soo noqonaya kan hadalka yiri waa dambigii ee gaalnimadii ma laakiin riwaayaadka qaar baad waxaad moodaa waxa ka muuqda inay gaalnimadii ku soo noqonayso مثلا روايه احمد بن داوود soo saaray wuxuu leeyahay ayyuma rajulin akfara rajulan musliman فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر روح مسلم قال يسيا هدو قال يهي كاس وقال يسيينا فذاك واحد هدو سن قال هينا كان قال لماذا توري وقال نقنيه
وقالوا ما سهلنا رواية كلا وحي لها هاي وحديث كلا وحو لي حديث ثابت بن الضحاك روح مسلمة إناد قالي سيسو أدو الدليو كلا كدقنتها من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله هذا قد كقويو الدليو كلا كدقنتها بخاري باوري هل يسوي مرك الإمام الشوكاني عليه رحمة الله أيا معناها سموتشنا يو مركو شرح حديث حذيفة بن اليمان وورينا يو وأوليه النبي صلى الله عليه وسلم وحيالها أن هذه انكبق يوحى كمذا نين قرآن كبرتي مركي قرآن كقروح حديثي أي كم قتي شيخ علماء ومحوها قرآن كي معنيه سي دينتي أي كم قتي أو إسلام كي الدفاع أيو مركا كدب كدح بحي قدال بو إسكدق سيفتي سوقاتي مسلمين تيبو قاليسيي ديقو دينا واقرعي مركا سأل له النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي ما كان قال لماذا طورها يكوها الليا با قال لما أولو مسكوكو طورها النبي صلى الله عليه وسلم بل الرامي كان قال لماذا طورها يددك قاليسينيا أيا قال لماذا أقدو كو قاليسينيا marka baashan la iska dabaalanahay waa gaal iyo way ridoobeen iyo muxuu ahay ka farxasha iyo muxuu ahay xataa culimadii ayna badbaadeen culimadii xataa waa gaalo iska mariyadoo la qoslahayo la maatanahayo ma maqashay lagu hayo baa la leeyahay muxuu ahay waa gaal waa murtadiin waa ka baxo waa ruuxa waa la isaga daba imaan doonaa waad ciyaaraysaa laakiin waa wax la isaga daba imaan doonaa haddaad aragto ruux sidiisaba baabka ku fudud waxaad ogaanaysaa meeshay ka socoto diintiisa jilicsan alla ka cabsigiisa jilicsan waraciisa jilicsan xalaal miirashadiisa jilicsan haddaad aragtaba ruux baabka ku fudud laana baab lagu fududaado ma go'aan la qaato waxyaalaha ugu adag waxa kamida ruux muslim oo calaamaadkii islaamnimadu ka muuqdaan oo diinta aad ka saartood xukunto go'aan la qaato waxyaalaha ugu adag bay kamid waxyaalaha dib looga istaago oo laga taxadaro oo laga fiirsado oo wax loo raadiyo oo aan lagu degdegin bay kamid haddaad aragto ruux ku degdegayo durbaa u fudud biyo la cabay uga fududahay bimaana diin xumo waay calaamad diin xumo waay marka ma sahlana yani kitaab malihid iyo diin malihid hadal fudud ma haddaadan u jeedin gaalnimo aadan u jeedinna waa hadal culus ahaantiis waad macna kale ka waday laana markay ugu yar tahay waa xadgudub aad ruuxa diintiisa iyo muxuu ahaay aad ku xadgudbayso way laba goorba waxaad u baahan tahay in aad ilaahay u toobad keento asagana aad yafi jiraa wallahu a'lam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik ilaahay subhanahu wa ta'ala shaafa kaabal mariyo su'aalahaas uu inooga jawaabay sida quruxda badan cilmiyeysan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu bariyeynaa in cilmigiisa iyo aqligiisa iyo cilmigiisa iyo arrintiisa inta baa lagu barakeeyo إلهي سبحانه وتعالى وحين كبرنا إننا فدقنا إنه ينوغرنا وفدي وينوغد بدافع فدقنا لأفراد برنامج كان فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون سؤالها برشاد وكجواب الجريشة لأن شمحا عبد عمر وبشي بلا بقى وربحا الكاس إن شاء الله تعالى هو كان يا وحا سؤالها لوسوها قاجري يا سيدي هر الله شيغي نمبر كواتساب كمسجد سير الزمن أفريد طبعا صدح بقول إن شاء الله تعالى marka numberkaas baa wixii su'aalaha insha Allah ta'ala lagu soo hagaajinaya qofkii gacan ku keenay xalay ama caawa insha Allah ta'ala su'aalihiisu isagana xalqadaha dambe ay ku soo bixi doonaan laakiin sidii ay u kala horeeyeen su'aaluhu ayay ku socotaa inta badan su'aal marka taagan oo ay khasab noqoto in la dhexgeliyo oo hadii aan xalqadan la gelin ee bisha dambe loo dib dhigo waqtigeedu dhacayo mooye inta badan waxay ku soconaa sidii su'aaluhu ay soo kala horeeyeen sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi